bismillaahir rahmaanir rahiim duhur wanaagsan dhageystayaal halkani waa Afrika raadiyo ku soo dhawaada warka duhur kuwooda ugu dooroona waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi oo qarax lagula eegtay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wafdi hogaaminaya oo gaaray degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose faahfaahin dheeraad oo laga helayo 3 ruux oo lagu dilay degmada Balad Xawe ee gobolka Gado isku hormaad khasaaro geystay oo ka dhacay degmada Dhuusmareeb ee gobolka Galgaduud maamulka Jubbaland oo faahfaahin ka bixiyay nabadoon dhaawac lagu geystay degmada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose maxkamadda sare oo ka hadlay caqabadaha ku gudban hanaanka garsoorka dalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ballanqaad u sameeyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wararka Soomaalida ka baxsan waxa ugu dooroon duqeymo loo geystay xarumo ku yaala dalkaasi Sacuudiga iyo 22 Oktoobar oo dhacaysa doorashada madaxtinimada waddanka Canada soo gudbinta warka doornimo idaacada Afrika waxa suura gelisay warshada isbuunyada Shaakir isbuunyo sharafteeda u doono warshada isbuunyada ee Shaakir intaasi aad maqlayseen dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadeenii ugu waaweyn wararkeena doornimo maanta waa 14 bisha September ee 2019 warka waxa si wada jireed halkan uga soo jeedinaya anigoo Cabdinaasir Axmed Yuusuf iyo waliba mahad xuseen muxidiin ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo qaraxa lagula eegtay duleedka degmada Balcad madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka tacsiidiyay geeridii ku timid gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellada Dhexe Abdullaahi Shatawi wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabelle Sabriye Cusmaan iyo ciidamadii la socday kuwaas oo ay miino dhulka lagu aasay kula qaraxday inta u dhaxaysa wadada xidhiidhisa Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ku hadlayo afka golayaasha dawladda Hirshabelle iyo Keegaba waxaana tiiraahida la qaybsanaya qoyskii ehladii guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan Hirshabelle ay ka geeriyoodeen mas'uuliyiintaas iyo ciidamada geesiyaasha iyagana shahiiday ayuu yiri madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare labada mas'uul samafalaha iyo askartii kale ee ku shahiiday qaraxani waxay waqtigooda iyo naftooda u horeen soo celinta nabadgelyada dalkooda waxayna dadaal badan geliyeen sidii Hirshabelle u horumari lahayd sidaas waxa yiri madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa marxuumiinta eeba ugu bariyay inuu naxariistii jannatul firdaws ka waraabiyo qoyskii iyo ehladii ay ka tageen oo samiri iimaanka siiyo waxaa faahfaahin kala duwan ay ka soo baxayaan isku horimaad geystay khasaare oo ka dhacay degmada Dhuusamareeb ee gobolkaasi Galgaduud wararka naga soo gaaraya degmada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in isku horimaad u dhaxeeya ciidamo kamid ah kuwa dawladda Soomaaliya oo ka dhacay magaaladaasi ciidamada ayaa saaka xili hore ku dagaalamay meel u dhow garoonka Dhuusamareeb oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada danab ee dawladda Soomaaliya hal askari oo ka tirsanaa ciidanka dawladda ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhaawacmay isku horimaadkaasi waxaana sidoo kale goobta gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya magaalada Dhuusamareeb ayaa horay sidan oo kale waxa uga dhacay isku horimaad u dhaxeeya ciidamo kamid ah kuwa booliska nabad sugidda Soomaaliya maamulka Galmudug iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku haysa degmada Dhuusamareeb wali kama aysan hadleen isku horimaadkaasi u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay nabadoon lagu dhaawacay magaalada Kismaayo Cumar Yuusuf Maxamed ayaa noo faahfaahinaya kooxo hubaysanaya magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ku dhaabacay gudoomiyihii isbeddeldoonka Jubbaland kaasi oo la toogtay xilli uu ku sii jeeday masjid ku yaala halkaasi dhaabaca Axmed Khalyar ayaa waxaa la geeyay mid kamid ah xarumaha caafimaadka magaalada Kismaayo waxaana goobta falka uu ka dhacay si degdeg ah isaga baxsaday kooxihii ka dambeeyay falkaasi dhaabaca ahaa Axmed Jaamac ayaa ahaa gudoomiyihii la magac baxay garabka isbeddeldoonka Jubbaland xilliga ay socotay doorashada maamulkaasi Jubbaland isla markaana kamid ahaa dadkii ka soo horjeeday madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhinaca kale afayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa ka hadlay falkii dhaabaca ahaa ee xalay magaalada Kismaayo loogu geystay Axmed Khalyar
sidoo kale afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in Axmed xaaladiisu ay tahay mid soo wanaagsananaysa islamarkaana ay ciidamada ammaanka maamulkaasi Jubbaland ay ku raad joogaan kooxihii ka dambeeyay falkaasi dhaawaca ahaa. alxamdulilah oday axmed jaamac uu fiican yahay caafimaadkiisa waxaa lagu dabiibayaa ama lagu daryeelayaa isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo xaaladiisa caafimaadna aad bay u fiican tahay waana ka soo raynaysaa dhagarqabayaashii geystay falkaana waxaa ku daba taagan ama insha Allah bidna kariim aan rajaynayaa in ay gacan bir ku soo qabtaan ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland muwaadiniinta marka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Jubbaland waxaan rabaa inaan u cadeeyo odayga inuu fiican yahay axmed jaamac xaaladiisa caafimaadna aad ay u fiican tahay aan rajaynaa insha Allah bidna kariim ilaahay inuu u boogadhayo caafimaad taam ah uu siiyo cidii dhagarta ka dambeysay ee dhiigga shacabka Soomaaliyeed mar walba xalaalsato aan ognahay shacabka Soomaaliyeed dadkiisa birmageedada mar walba inay beegsadaan ama ay si xaq darre ku laayaan insha Allah waxaan rajaynaa in la soo qabto sharcigana loo keenay haduu ilaahay idmo reer Jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaan reer Kismaayo waxaan leeyahay amniga ha laga shaqeeyo ha lala shaqeeyo ciidamada ku hawlan sugidda amniga habeen iyo maalin u taagan waqtiga roobka iyo waqtiga qorraxda u taagan waa dareemi kartaa mar haddii amni darre iyo dhibaato lagu keeno ama dhibaato ay imaado cid ay ku saameynayso waa bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland waxaan leeyahay marka walaalayaal garab istaaga ciidamadeena insha Allah. maamulka Jubbaland ayaa intii ay socotay doorashooyinka maamulkaasi waxaa dil iyo dhaawacba loogu geystay nabadoonno iyo mas'uuliyiin ka soo horjeeda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyaduna falkan uu imaanayo xilli maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay ka dhacayeen falal amni darra. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu ballanqaad u sameeyay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ka qayb galay munaasabad sagootina ay wafdi uu hogaaminayo loogu sameeyay magaalada Baydhabo ayaa bulshada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku amaanay isku duubnida dowlad jaceylka iyo waliba ka shaqeynta danta guud. Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in maalmihii uu joogay magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo inuu wax badan ka ogaaday adkeysiga wadajirka iyo waliba dowlad jaceylka bulshada Koonfur Galbeed. arrintaasi ayuu ku dhiirigeliyay madaxda qaranka in ay laba jibaaraan shaqooyinka bulshada loo adeegayo si looga dhabeeyo rajada wanaagsan ay qabaan shacabka iyo soo kabashada nidaamka dowladnimada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa cadeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay kala shaqeynayso dowlad goboleedka Koonfur Galbeed fulinta mashaariic horumarineed iyo waliba xoreynta deegaanada xarakada al-shabaab ay kaga sugan yihiin si dhammaan deegaanada loo gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ee nolosha bulshada u baahan tahay. ma nasan karno intuu jidku naga xiran yahay mana niyad jabi karno sababtoo ah waa in dadaalada aan wadno aan ku xareynayno hadda shabeellada hoose markaan soo gaarsiino afka bay inaan dhamaystirno aan isku furno jidka u dhaxeeya Baydhabo iyo magaalada Muqdisho haddii ilaahay ma niyad jabi karno inta wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed aan ku arkay Koonfur Galbeed ay leeyihiin kaliya waxaan rabnaa in naloo sameeyo aan ku shaqaysano ama aan ganacsi ku samaysano. ma niyad jabi karno inta weli Koonfur Galbeed ay ku shaqaynayso halkan oo ah ku meel gaar waa inaan ku meel gaarka ku bedelnaa mashruuci waaray oo ahaa meesha loogu talagalay. ma nasan karno inta ciidamadii aan ku aragnay Xudur oo ahaa ku dhawaad 1000 askari aan ka qarameynayno ka diiwaan gelinayno mushaar ka siinayno ka hubeynayno siday cadowga uga difaacaan reer Koonfur Galbeed iyo Soomaaliya inteeda kale. ma niyad jabi karno ma nasan karno inta isbitaalka Xudur aan soo arkay uu dunsan yahay. ma nasan karno ma niyad jabi karno inta isbartiibadii aanay dhisnayn. ma nasan karno ma niyad jabi karno inta gabdhihii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed aan ku soo arkay magaalada Xudur ay yiraahdeen waa in magaalada nalna loo geliyaa. Mudane Xasan Cali Kheyre oo muddo toddobaad ku sugnaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan kana dhageystay baahidooda waxa uuna dhagax dhigay mashaariic horumarineed isagoo bixiyay lacago lagu horumarinayo garoomada kubadda cagta ee Dr. Ayub iyo waliba Dr. Waberi ee magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur ee gobolka Boqol iyo Bay. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo wafdi hogaaminayo ayaa ka hor dhow gaaray magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose iyadoona halkaasi si weyn lagu soo dhaweeyay.
madaxweyne laftigaran iyo wafdiga la socda ayaa hordhac u ah socdaalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre uu ku tegayo magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose. waxaa magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose ka socoto qabanqaabada lagu soo dhaweynayo wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya. dadweyne aada u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada marka ayaa iminka soo buuxdhaafiyeen gudaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, kuwaas oo sito sawirka ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya. ciidanka nabadgelyada ayaa si aada u xoojiyay amniga magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose, waxaana shacabka iyo maamulka gobolka shabeellada hoose ay qorsheeyeen in wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa dadweynaha kula hadlayaan barxadda minishiibiyada ee magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose. faahfaahino kala duwan ayaa laga helayaa 3 ruux oo lagu dilay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. maxamed aadan ismaaciil ama ayaa faahfaahinta warkani haya. 3 ruux oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta la shaqeynaysay maamulka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado ayaa xalay kooxo hubeysan waxay ku dileen degmadaasi sida ay noo xaqiijiyeen maamulka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. dadka la dilay ayaa kala ahaa Cabdi Cali Keenan oo qaabilsanaa waaxda maaliyadda degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado, Xuseen Shariif Cabdulle oo ahaa gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado, iyo Xabiibo Cabdiraxmaan Cali Xabiibo Ladan oo ka mid ahayd ururka haweenka maamulka Jubbaland. ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa howlgalo ka sameeyay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado ay ku baadagoobayaan dadkii dilay 3 ruux ee mas'uuliyiinta ka tirsan degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado, waxaana mas'uuliyadda dilka dadkaasi sheegtay xarakada Al-Shabaab. qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado ayaa walwal ballaaran ka muujinaya dilka loo geystay mas'uuliyiinta ka tirsan degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. halka warkaasi dhageystayaal duhur aad ka dhageysanaysaan oo shabakada warbaahinta Afrika magaalada Muqdisho imikana qodobada dibadda. duqeymo loo geystay xarumo ku yaalo wadanka Sacuudi Carabiya. duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha droniska ayaa sababay dib u qabsaday 2 xarumood oo lagu soo saaro saliidda shidaalka ee dalka Sacuudi Carabiya, sida ay ku warantay madaxda shirkadda Aramco ay maamulaan dowladda dalkaasi. afhayeen ku hadlay wasaaradda arrimaha gudaha iyo madax kale ayaa sheegay in weeraradaasi lala beegsaday 2 xarumood oo lagu soo saaro saliidda shidaalka, kuwa oo kala ah Abqiiq iyo Kureyz. madaxda dalka Sacuudi Carabiya ma cadana halka laga soo abaabulay weeraradaasi, waxaana inta la raaciyay in ay socdaan baaritaano ku aadan shilkaasi. telefishinka Al-Masirah ayaa maamulana kooxda Xuutiyiinta ee magaalada Sanca ma uusan xusin wax war ah oo ku saabsan duqeymahan diyaaradaha droniska ee gudaha Sacuudi Carabiya lagu weeraray. Sacuudiga ayaa hogaaminayay isbahaysiga ciidanka oo tan iyo sanadkii 2015 la dagaalamay kooxda Xuutiyiinta ee maamula qaybo ka mid ah wadanka Yemen. guud ahaan dhageystayaal warkii duhur oo si wada jireed halkan uga soo jeedinayeen anigoo Cabdinaasir Axmed iyo waliba Mahad Xuseen Muxidiin waa nageynta. warka waxaa farsameynaya Cabdisalaan. tan iyo mid kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo. Africa Radio.